السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر الوضع على الجنرال كان وجنرال كيما برا كسر الوضع ولا إلى هدي عاد نوع عصب تاعي جنرال كا سبسكرايب ده جمال الكتابة all سي تابع إن شاء الله تعالى عشرة كم سيجي دونا ندوال إدمو هدي عاد نرجوكتينا فضلا لايك تا نوجد دال شير تا وليبا aan ka ilaawin qofka nagu cusub markaad subscribe tiraahdo subscribe fadlo waa hal mar markaad subscribe tiraahdo gambale ka sii riix all meesha ku qortay taabo waad wada heli doontaa casharada insha Allah taala waliba like noo sii saar noo share gare intaba nagu caawi insha Allah taala anaga bakhaylin ninkii nala sii joogayna ama asxaabta nala joogtayna waxaan ka codsanayaa inaad like noo daashaan noo share gareysaan cashirka xogaa aniga ayaa marka qaarkood soo daaha waa run waan yar dibdhacaa mashquul jira awgii ayaan xoogaa la soo dibdhacaa insha Allah tacaala marka muxuu ahaa sidaas awgeed bariyaan waxaan arkay xoogaa cashirada in ay yara gaabis yihiin marka insha Allah tacaala bal waan isku dayi doonaa inay joogto noqdaan walaalayaal waxaan soo sameeyey link ayaan soo sameeyey WhatsApp kaas ayaad igala soo xiriiri doontaan maalin hore telefoonka ayaan hoos in soo saaray oo asagoo looga linki ah andana sidoo kale maanta linki caadi ayaan in soo sameeyo WhatsApp ka insha Allah taala Telegram kana waan ku maqan hadii aan asaguna jaash helo marka labadaas baad igala soo xiriiraysaa link aad riixaysa WhatsApp ka ugu geynaya halkaas ayaan insha Allah taala dadka hadii ay WhatsApp ka aad soo gasho lambarka soo geliso waxaan awoodi karaynaa insha Allah taala inaan dadka ururino oo dadkii diyaar ah ay WhatsApp samaystaan halkaas cashirada loogu soo diro lala xisaabtamo insha Allah taala marka bal aan qofkii diyaar ah halkaas insha Allah oo soo taabto fikirkan ha soo geliyo insha Allah taala waad aan halkaas ku wadaagi doonaa wixii fikir ah linkiga la soo raac insha Allah taala WhatsApp ku weyn doonaa dalid inta kadib waxaan maanta inayaa cashir have and has waligay waxaan soo qaataa inta badan erayada ayaan doonayaa inaan mid ku baro si aad u ogaato jumlada isku dhaxyaacsan tahay xoogaa waxa laga yaabaa qofka bilowga inuusan fahmin marka insha Allah waxaan rabaa inaan ku kala saaro oo aan eray ku baro insha Allah taala adiguna waad ila socon doontaa waa daneeyaha luqadda Englishka insha Allah taala maanta waxaan qaadanaynaa labadan eray ah have iyo has antan ayada waan baran doonaa mar dhanbe noo soo socotaa ayada waa iyo macnooyin badan ee Soomaaliga ku leedahay waan in bari doonaa insha Allah taala waan iga faa'iido doonaa bal maanta has tan arkeena have tan arkeena walaalayaal have erayga asal ahaan waa main verb ama waa verb to action waa ficil oo loo yaqaan haysasho ama wax markaas adiga aad gacanta ku haysato eraygan has ana wuxuu ka yimid halftan ayuu ka soo dhashay oo isbedel waqti oo dhacay awgii ayuu ku yimid asalkiisa waa half waa saan dhuugidaas ku soo sheegay kale mar labaad erayga half ama has waxa loo yaqaan waxay noqdaan ficilnimada ama falnimada ay ka guuraan horta aan ku noqday main verb waxaan ku leeyahay verb waxa la verb maxaa noqonaa waa ficil ma ficil carabi waa laakiin af Soomaali maxaa u dhaha fal ayaa lagu yiraahdaa falka waa erayga ku tusinaya ama ku cadeynaya waxa aad sameynayso ama aad falayso sidaas awgeed mar waa fal oo waa half mana book baan haystaa cashir baan leeyahay guri baan leeyahay waxa markaad leedahay I have waxaan leeyahay cow I have a lesson I have a half baan leeyahay markaas waa falki weeyaan waa fal ama laakiin haasan waa soo kala inay ka timaadaan ku mar horeba tan uma ku macnayna insha Allah taala okay marna waxay noqdaan labaduba ficil kalkaaliye ama fal kalkaal ama fal gargaar ay noqdaan waxa la yiraahdaa English magaca waa helping verb ficil caawiyo helping verb ficil caawiyo ayaa la yiraahdaa oo ficilka ay caawinayaan مثلا
qof hadda dhow imaaday oo kale waqti dhow waxa present perfect leh tusaano qof mar dhow yimid ayay macnaha ku muujiyaan ficil mar dhow dhacay aan dhaho ficil mar dhow dhacay ay ku muujinayaan oo matalan Ali hadda ayuu yimid marka la macnaha Ali has just come Ali has just come just hadduu kam imaaday mana has taas marka kamta ee halkaas ku jirta ayaa falki ah has tana fal caawiye ayay aheedoo macnaheedii kamtaa qaadanaysaa laakiin iyada waa caawiyo oo waqtiga ayay kuu sheegaysaa macnihii lahaanshaha ama haysashada ah way ka guuraysaa marka insha Allah tacaala waan ayagana meeshadan ugu tegi doona markaan testiga baranayna ayaan ayaga si fiican u faahfaahin doonaa insha Allah hadda intaan la socono hadda ereyaan waartaan doonayaa bal sii barto insha Allah tacaala waxaan hadda ku maraya oo kaliya dadka qaadanaya half yaa qaato haasna yaa qaata intaas hadda ku baraya bas insha Allah tacaala waxaan barayna waa taas half yaa qaadanaya bimaa waa horaan ku soo sheego dadka hadlaya waa 7 qof oo ah aniga adiga asaga ayada anaga idinka ayaga 7daas Englishka ayaa waxaan kala duwanay it oo madalan waa I you we they oo isku group ah iyo he iyo she it oo isku group ah marka insha Allah tacaala waan arki doonaa ayaan ku soo kala doonaa 7daas qof ayaa lagu kala meeleeyaa marka half yaa qaata has yaa qaata ayaan ku sheegay insha Allah tacaala waa socod wanaagsan waxaan has ereyga leeda to be used waxa loo isticmaalaa for one person hal qof or ama sana one thing masala shay or calaamada strong ah waa ama weeyaan marka has to be waxay ahaatay used loo isticmaalaa bidan ahaansho wey used mid loo isticmaalaa for one person hal qof one waa hal xaba person qof oo ama sana thing masa hal shay baa loo isticmaalaa waa hastaya hal shay for to be used for one person hal qof or one thing masa hal shay baa loo isticmaalaa waa hasta oo ya halfta waxaan u isticmaalaynaa walaalayaal half to be waxay ahaatay used mid loo isticmaalaa for more than wixii ka bata more badan than ka wey dantaas waa ka more than ka badan badantii waa mooda thanna waa ka more than ka badan one person hal qof oo ama sana thing one thing hal shay wixii hal ka bata ayaa loo isticmaalayaa half to be used waxaa loo isticmaalayaa to be used waxaa loo isticmaalayaa use waa isticmaalka for more than wixii ka bata more than ka badan more than maxaa waaye ka badan one person hal qof wixii ka bata or ama sana one thing mas hal shay wixii ka bata ayaa waxaa loo isticmaalaa half oo insha Allah tacaala look at firi these examples look at firi these examples tusaalooyinkan firi insha Allah tacaala markaan saas loo isticmaalaan ku lahaa kuwa kale ku qaab kale loo isticmaalaan ku keeni doonaa si fiirsan insha Allah tacaala waayahay cashirka dhageyso oo dhamayso adiga ayaa fahmi doonay insha Allah tacaala look at firi these examples tusaalooyinkan one wixii hal waa kana marka one hal one tusaale ko the boy wiilka has wuxuu haystaa a flower ubax the boy wiilka has wuxuu haystaa a flower waxa isku mid ah has mana waa leeyahay iyo haystaa waa isku mid wiilka geel buu leeyahay haddaad leedahay geel buu haystaa markay geel buu leedahay ubax buu haystaa baad leedahay laakiin waa isku macnaad u maraysaa the boy has camel ama the boy has a goat the boy has a cow saas u maraysaa the boy has a flower waa isku mid haddaad ka dhaadid waa isku haysasho ama lahaansho waa isku mid the boy wiilka has wuxuu haystaa a flower ubax buu haystaa the girl gabadha has waxay haysataa a knife midi boyga waa hal wiil girl waa hal gabar mana one baan ku jirnaa hal baan ku jirnaa has bay qaadanayaan a knife waa midi kayda lama aqrinaya flower ubaxa knife midida a cow sac has wuxuu leeyahay two horns laba geesood buu leeyahay a cow sac sac waa meeqa sacad waa hal a cow sac has wuxuu leeyahay two horns laba geesood two laba horns uu leeyahay horns waa geesaha the driver darawalka has driven wuu kaxeeyey his bus baskiisii waa kana marka intaan hore waxay lahaayeen lahaanshaha oo muhiim faabka ay ahayn labadan dambana waa iyaga oo fal gargaara ah ama caawiya ama falkaab ama helping faab ah weeyaan oo
the driver darawalka has driven okay driven tana main verb ama falki ama action ki has ta marka waa caawiyo noqonaysaa macna uma yeelid macnaheed wad baabinaysa waxa leedahay the driver darawalki has driven uu kaxee ma dhihi kartid the driver darawalki has wuu haystaa driven kaxeeye ma dhihi karaysid macna ma yeelanaysa waxaad samaysaa the driver darawalka has driven uu kaxeeye macnaheed baabiye markaasaa ku baabiye ayada oo kuu sheegaysa waqtiga marka darawalka uu gaariga kaxeeyey inay mar dhow tahay his waa wixiisa his baskiisa the driver has driven his car the driver has driven his car darawalki gaarigiisu kaxeeyey the driver darawalki has driven uu kaxeeyey driven kaxeeyey his baskiisi bana my uncle adeerkay my waa wixiga uncle adeer weeyaan my uncle adeerkay adeerkay marka waa meeqa qof waa hal qof my uncle adeerkay ama abtigay has wuxuu just haddeerta arrived yimid weeyaan my uncle adeerkay has just haddeerta ayuu arrived-tana marka main verb ama falki sidaas awgeed hastan caawiye ay noqonaysaayo micnihii maalan awal haysashada ama lahaanshaha way ka guuraysaa macnaheedii halkaas ku baabayaa waa caawiyo oo maxaa leedahay my uncle adeerkay has just haddeerta arrived ayuu yimid has just marka haddaad aragta main verbkan ee hadda basiga isla socda iyo hasta isla socda waa fal la yiraahdo tagta dhow has iyo arrived markay israacaan ama has driven has arrived has come marka saas main verbka ay u raacaan present perfect tense ayaa la yiraahdaa waxaa leedahay af Soomaaliga tagta dhow ayaa la yiraahdaa tagta fog waa wixii simple past oo macnaha wax mar hor dhacay weeyaan ama laakiin tagtada dhow waa present perfect waxa loo yaqaano مثلا has come has arrived has driven has arrived waxaasoo kale mar dhow dhacay ayaa has ay ku sheegayaan haftiyaad markaas ku sheegayaan waa caawiyaal halkaas maamuladiina marka lahaanshaha kaga guurayaa ayaguna waxay ku sheegayaan falka dhacay inuu mar dhow dhacay oo la yiraahdo tagta dhow loo yaqaano the driver darawalkaas driving uu kaxeeyey baskiisi my uncle adeerkay has just arrived ayuu yimid baa leedahay okay more than one aragna marka more than one hal wixii ka badan more than ka badan one halaba the boy will meeshii weelka ahayd s noogu dar waa kan fiiri the boys wiilasha english waxa lagu badiyaa inta badan s ma lagu darsaa markaad badinayso the boys wiilasha half waxay leeyihiin ama half waxay haystaan flowers ubaxyo the boys wiilasha half waxay haystaan flowers ubaxyo the girls gabdhaha s ma ku darsanay meeshii gaal beed hal gabar beed hadda s noogu dar si noogu badato the girls gabdhaha half waxay haystaan knives midiyo flower ubaxyo jas baa lagu dar waa la jamciyey هذا في أو flower marka eedaran ku jirto waa mufrad hadii s inta loo daro eedas way baxaysaa la soo knife waa hal midi ee ka horeyso hadii knives la jamciyo oo s inta galga loo daro eedas way ka baxaysaa la eeda mufrad ay raacda la soo ayna taas waa gaban doona insha Allah taala hada yaan ku sii mashquulin wali the boys will have flowers ubax bay haystaan the girls gabdhaha half waxay haystaan knives midiya ay haystaan baa leedahay lama akhriyo cows cow meeshii ay halka cab ahayd hada cows baa leedahay oo goynaysa cows sacaha way bateen half waxay leeyihiin horns geeso cows have horns cows looda half waxay leedahay horns bay leedahay mana geesay leedahay half maxay saciya batay mana waan badinay half saysi ku qaateen okay half tii handana fal gargaar ama caawiya sidii kuwii hore kale ila arag marka the drivers darawalada awal driver hal xabu the drivers darawalada have driven way kaxeeyeen half driven jamacadeen odan half ay qaadanayaan haas wala guuriya half driven way kaxeeyeen their buses basaskoodii their meeshii ahayd halkan fiiri his bay ahayd his wixiisa ninkii his baskiisa waa his wixiisa haddii bateen laba nin noqdeen ama ka badan their bay isu bedelaysaa waxooda their their the drivers darawalladii have driven way kaxeeyeen their buses basaskoodii their waxooda way their buses basaskooda driven have driven marka waxa way waa tagta dhow have driven way kaxeeyeen their buses basaskooda tagta dhow weeyaan the drivers have driven their buses basaskooda way kaxeeyeen tagta dhow weeyaan marka halftaas macnaheedii sidaas ku baabayo driven ba ka qaadatay waa caawiye un bay halkan ka noqonaysaa awalna maxay halkan markay joogtay main vibe oo maxaa lagu gargartaa markay halkan joogto flower oo magac ayaa ka dambeeya
half tan knife ay ka dambayso waa magac haddii magac saan laga dambeeyo oo flower magac waaye knife magac waaye hone magac waaye hadduu magac ka dambeeyo markaas ayaga waa main verb yaal ay noqonayaan waa haysta ama laha bay noqonayaan ama laakiin hadduu ficil weyn oo action oo ka dib mara half tan fiir maxaa ka dambeeya driven oo action ama main verb oo half tan maxaa ka dambeeya just oo arrived mana arrived oo ka just iska adverb ayda arrived oo ficilkii ayaa ka dib maray sidaas awgeed half tan macnaheedu halkaas caawiye noqonaysaa marka insha Allah taala saas ku kala garta the drivers darawaliinta have driven way kaxeen their buses baskoodii my uncle is adeerayaashii waan badiyey my uncle is adeerayaashii abtiyaashii have just hadeerta ayay arrived imaadeen have just hadeerta ayay arrived imaadeen my uncle is adeerayaalkay have just hadeerta arrived ay yimaadeen marka half maxaa loo siiyey uncle is tawan jamca sidaas waxay ama mufhamana wadar baa jamca soo lagu yiraahdaa my uncle is have just arrived saas half ku qaatay wixii badan baa qaata more than one baan ku jirnaa wixii halka badan insha Allah taala more than one hal wixii ka badan sidaas awgeed adeerku u batay half ayuu qaatay my uncle is adeerkay have just hadeerta arrived ayay yimaadeen baad leedahay insha Allah taala dhegeysi wanaagsan thank you very much waan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee casharada ila socotaan ee dhageysanaysaan oo aad ila galeysaan waa mahadsantiin aad iyo aad baan insha Allah assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته